بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحرجينيا maanta doonaya inaan wax yar isla wadaagno biidnillah sababaha keena in kurabka ama hamiga ama dhibaatada ay ku faydanto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga qaadayo asbaabaha keena biidnillah waa isla eegeynaa. qof kasto inaga mid ah waxa laga yaabaa inuu wax tabanayo, qof waxa laga yaabaa in awlaadku ku adag tahay, qof waxa laga yaabaa inuu shaqo la'aan yahay, qof waxa laga yaabaa inuu fakhri iyo lacag la'aan dareemayo, qof waxa laga yaabaa gabar inuu ninka ku xun yahay, nin in xaasku ku adag tahay oo dareemayo inay ma garanaysaa sidii la rabay inay ahayn. qof kasta Ilaahay subhanahu wa ta'ala buu marti uga yahay kana baryaya markasta in uu kurbada ka faydo, dhibka uu dareemayna Ilaahay uu ugu bedelo raaxo iyo wanaag iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu faraj u furo. insha Allah waxaan boobsiinayaa dhowr sababood oo keena kadibna insha Allah qisa idin la wadaagaya biidnillah. sababta ugu horeysa waxa waaye an talja ila Allah, in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u cararno, Ilaahay subhanahu wa ta'ala garab weydiisano. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa samiic, waa basiir, waa qaadir ala kulli shay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuuna maqlayaa, wuuna arkayaa arrinka ku sugannahay. haddii ducaysano gacmaha u taagno Ilaahay wuuna maqlayaa biidnillahna Ilaahay wuu naga ajiibayaa ducadeena. ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala xusnu dhan billah, ina Ilaahay wanaag markasta ka danidid aadada Ilaahay faraj buu ii furayaa, Ilaahay dhibto iga dul qaadayaa, Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadan ducaystay wuu iga aqbalayaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiis qudsi ku lahaa ana cinda dhanna cabdi falidhanna cabdi ma sha Allah. wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala lahaa anigu waxaan ahay adoonkayga malihiisa ama danigiisa. marka Ilaahay inaan malo wanaagsan ka malayno, sidoo kale ina ducaa ul mutawaasil alnimaano ducadu waxay leedahay xilliyo gaar oo la aqbalo. qofku Ilaahay markuu ugu dhow yahay xilliga uu sujuudsan yahay, Ilaahay bari, Ilaahay isagoo ku arkaya si tadarruca ugu sheeg dhibaatadaada, Ilaahu sida isaas ay haysato, Ilaahu iga saar. sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala sulusul akhiir wuxuu yimaada samaa dunya, wuxuu dhahayaa i weydiisanay wax aan siiya, ina xilliga ka faa'iideysatid Ilaahu waxaas u baahnahay, Ilaahay u isii. sidoo kale mulasimatul istighfar, ina istighfarta la sintid siniyada istighfarta u sameeysid. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu lahaa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. nabi nuux markuu dadkii loo soo diray kari waay wuxuu ku yiri faqultu astaghfiru rabbakum innahu ilaahay istighfar weydiista, Ilaahay uu idin dambi dhaaf weydiista. Ilaahay subhanahu wa ta'ala samada roob idinka keenaya, Ilaahay wuxuu idin siinayaa wiil iyo beero iyo khayr iyo nimco ee Ilaahay weydiisto ku lahaa. sidoo kale ina maxay dadka u gargaartid, qofka dadka markuu u gargaaro faraj baa Ilaahay u furaya. ilmaha kuwa xanuunsanaya sadaqa la bax, lacag baa haysataa sadaqa la bax. qof walaalka oo maxay baahan u gargaar, Ilaahay subhanahu wa ta'ala farajkaagi ayuu ku furayaa oo kurbadii ayuu kaaga feedaya, sadaqada la baxday. qof xanuunsanaya booqo, isbitaalada ku jira booqo, walaalka hadaa wax kale u qaban weydid u ducee, Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka feedaya kurbada. sidoo kale ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala dikrigiisa la badiyo, waxa kamid quraanka dikriga. tawakkul ala Allah, Ilaahay subhanahu wa ta'ala uma tawakkal ala Allah fa huwa hasbu, Ilaahay uu ku filan yahay qofkii tala saarsada. sidoo kale birrul waalideynka kamida wal ihsaan ilayhim wa dalab ad-du'a minhum, in Ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidka loo bir sameeyo, in loo isxaan sameeyo, in dalab ad-du'a, in du'a laga dalbado la dhaho iyo duceeyo. sidoo kale waxa kamida in dulmiga la iska ilaaliyo iyo dacwatul madluum, ina qof dulmidid oo uu ku habaarana dhibtu way ku timaadaa. inta hadda asbaabta kaga gudubno codka inuu dheeraado mar rabo biidnillah waxaa u galayaa qisadan waa qiso runtii aniga mar hore maqlay anoo galaaska tobnaad dhiganaya, kadibna waa iga kala dhuntay. qiso cajiib weeye, waan raadin jiray. alxamdulillah sanadkii hore waxaan ka dhaxalay sheekh muxaadireyn soo qaadanaya, sidiiba ugu dhaganahay qof kastana waxaa jeclahay biidnillah inaan uga sheekeeyo. qisada waxay dhahaysaa nin baa xilli aad u horeysa xajka aaday. markuu xajka aaday ayaa wuxuu nin taajir u ahaa, lacag badan haysta. sanduuq buu wuxuu ku qaatay mujawharaadka iyo dahabka iyo lacagtuu lahaa dhan. maybe inuu xagga alaab rabo inuu kaga soo gato wadankiisii kusii ganacsado, maybe inuu meel uu ku aamino waayo saas u qaatay. adiga lacagtii way ka dhuntay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu imtixaamay ninkii, wadankiisii buu kusoo laabtay isagoo lacagtiisii wadanin oo sanduuqiisii dhammaan ka dhumay lacagta ugu jirtay. fakhri baa ku dhacay, wuu fakhriyay.
يعني dhibaato maray maalintii dambe wuxuu go'aansaday isagii xaaskiisa in iskaga tagaan magaalada joogan oo magaalo kale aadaan magaaladii kale markay soo aadeen oo yimaadeen rooba magaalada ka da'ay magaalada rooba ka da'ay subxaan takhayal adoo magaalo kale aad safara meesha u socotay roob ka da'ayo cid ku aadaneen oo qof ku dageenin lacagna haysanin xaaskaaga oo xaamilaana wata subxaan allah meel waxay galeen guri kharaabada ah oo jajaban bay halka roobka ka galay isdhaheen gabadhii way foolatay way dhashay alxamdulillah markii umushay ayaa waxa dhacday waxay ku tiri wargaajo ahaysay waxa cuno ii raadi ninkan lacag yar buu haystaa wuu soo orday meel wuxuu imaaday nin wax gadaya wuxuu ku dhahay waxa ay siisaa raashin suuqay dardar xaaskaygiiba umushay halkaas bay joogtaa roob baa jira dhaxan baa jirta gaaja jirta xanuunka umulnimada jira subxaan allah yani wax la suuraysan karo maaha kadib isagoo wuxuu siiyey weel wuxuu dhahay weelkan ku qaado markaa ku cunto ii soo celi isagoo cuntadii wada oo wadada maraya ninkiina ka imaaday gabadhii umusha ahaydna aan gaarin ayuu siibtay lugta u baxsatay yani meesha roob waa dhiiqo dhulku ku dhacay cuntadii way daadatay wuu qayliyey wuxuu dhahay ilaahayow rabbi raxmaanow yani maxaa saas aniga igu dhacaysaa lacagteedu iga dhuntay xaaskayga meel cidlaa ku umushay roobkan iyo dhibtaan yani yaa rabbi maxaa sameeyey kadib nin baa daaqada madaxa wuxuu kala soo baxay guriga u dhawaa meesha ku qaylin kasi wuxuu ku yidhi maxaad la qaylinaysaa kaa seexano oranaga tag markaas wuxuu dhahay aniga wuxuu dhahay cuntadii xaaskayga umusha wada iga daadatay markaas wuxuu dhahay cunto yar baad la qaylinaysaa wuxuu dhahay niyahow ha idhihin saa si ibtilada iigu dhacday imtixaanka iigu dhacayna kuusan kuugu dhicin waxaan ahaa nin noocaayo noocaasa oo lacagta noocaa haysto taajira sanadkaas baan noocaasaan xajiyey lacagteedii waa iga dhuntay imtixaankan baa igu dhacaye adigana wuxuu dhahay yani ha igu jeesjeesin markaas buu wuxuu dhahay kaali sidee u eekaa sanduuqa lacagta kuugu jirto wuxuu dhahay maxaa kaa galay faa'iidada hadda ay keenayso maxay tahay inaa ogaatid wuxuu dhahay ilaah baan kugu dhaariyey ii sifee oo muwaasafaadkiisa ama siduu u ekaa ii sheeg sanduuqa kadib wuu u sheegay gurigu soo geliyey wuu fariisiyey xaaskiisii waa lasoo kaxeeyey waa loo qubeeyey cuntaa la siiyey wax kasta wanaaga oo gabar umusho u baahneed ayaa loo sameeyey 10 beri wuxuu dhahay ila joog maalin kasta lacag yar buu siinayey ninkii wuxuu maalin dambe lacag badan buu u dhiibay wuxuu ku dhahay maxaa ka ganacsan kartaa wuxuu dhahay aniga si fiican baa u ganacsan karaa ganacsida ahaan jiray okay wuxuu dhahay lacagtan qaado ganacsi ku samee lacagtan anaa iskale adna waxaad ku shaqeynaysaa waa ku shirkoobeynaa ninkii lacagtii uu qaaday uu ku shaqeeyey markii muddo xilligii ribixa la gaaray ayuu u keenay wuxuu dhahay lacagtii waatana intan qaado intan anaa iskale waa yani maadaama ku shirkoonay kadib ninkii wuxuu dhahay soo fariiso wuxuu soo qaaday sanduuqiisii markuu arkay ninkii taajirka ahaa oo sanduuqa ka dhumay sanduuqiisii koomu galay يعني معقول إن الصندوق خير هل كان كهله كدب بيا لو سيري وكعي كدب وحنا كل هاي صندوق خان مقرن الساعة هل كيك كانت سنة كنوع عسى حاجة كهلي قفك مؤمن كإسلام كأسيد ذبا وهدو أمانة هلو أمانة ذا مدسنا ذو النادينية يعني يا لو ده يا هدو وايعدي لهاد واستعمالها هدو قفك لها دور سنة كدب أي ماذا وعلينيا marka wuxuu dhahay sanduuqan adaa iskale lacagtan ku dhiibana adaa iskale waa ku tijaabinay inay yani tahay ninkii amaanada lahaa qaado uu dhahay alaabtaada waa ku kaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la soo doontay oo cagihiisa uu keenay meesha oo leed alaabtii ka dhuntay qofku hadduu ilaahay isu dhiibo oo ilaahay tala saarsadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u furaa faraj intaas insha allah ku eegtaa fariinteenu raalli ahaada video waa dheeryahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu